ودولة قرية الصومالية وبنتها هي كذول الجلودية مدحوينها قرية الصومالية عارف شو ما اسمع بركي لما أنت بركي صومالية غيرها مدحوين إسماعيل عمر قيله وهمتي وأوقع وصنع مدحوين حسن شيخ وأوقع وصنع لكن أب ما نروح مع المكان عن أخي موسى وكتري إنه كنت أروح الدور كاسي مدني أحمد محمود سيلاي أو أهلي كي كرسي يسقى هو كعي سلطان نبض كشقيها ونمد سقطه ودك سبيل الرواينوك سلطان قري كوارا ما القرن هذا ما سلطان شيء غير تحسين وقت الله قالك دي قرن كمان ندم بلا دم قرن فرا كل شيء ومد بدورش هولاد كوري خلق البنا بدي قلي مدن أو مسؤول قرن أو ترتمى يدور الشو مدحتينمو إنما الصلادينا أو مقام يكرامه يشرف كل بالشدة إنه يلاحظه يجو أندم يقول له ساعتين ودنبيليان ومن سبحان الله وياه waxaa gacanta ku haya hay'adaha nabadgelyada booliska gacanta ku haya waxa ay tahay amaan huwa in dambigooda la baarayo maxkamadda la horkeeyo waxa mutataan u qaaday aan waxa rumaysanahay shacabka Soomaaliland u yihiin in nimanka salaadiinta ee sibayse iyo sulb iyo rag faraha badan leh jiif aqal xoori ay u xiran yihiin in ay Saciid iyo Muuse Bixi in u xiran yihiin xaq daran ugu xiran yihiin laba biloodna jeelkii Mandheere la geeyay iyadoo aan sharciga la horkeen war sharcigu hadduu shaqeyn waayo gacanta la soo tagaya faysal waa lagu adeegsayahay laba goor oo tartan galay insha Allah tadam ku guuleysan doona labadii hore oo sameeyay sababni inta halkaas soo istaagay yiri musharaxa xisbiga uu cid waa Faysal ala waraabay sida uu oran karaa taasi sidee buu oran karaa taas Muuse xisbigiisii maaha isagu muu dooran gola dhaxaa fadhiistay xisbiga cid waa loo yahay 4 sanadood ka hor isaga ka hor ma anagu musharax Muuse waa uu cadaystay dagaal buu cadaystay in ninka Jamaal Cali Xuseen loo dooray tartamiyo waa fulay la tartami kara ma in xinayla haduu yahay halkaas oo istaaga waa la tartamo hadduu xisla hayo